السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتوا عنا وناسين داوديال كنا سو دوادا إليس تي في وأنا كسو تمنينه حرونتي سمجال لندن عرق إنجليزكا داوديا برنامج تطبيقات كحن كسو قادنا برنامج كارا عن كسو قادنا إنه bandhig dhaqameed ururka OYSU Finland ku muujiyeen hidaha iyo dhaqanka Soomaalida Ogaadeniya bandhigan waxa ka soo qayb galay ururo ka soo jeeda qaaradda Afrika waxaana lagu qabtay magaalada Helsinki ee wadanka Finland faafaynta barnaamijka waxa inoo soo diyaariyay wariyahana Ilis TV ururka midowga dhalinta iyo ardayda ogaadeen OYSU ee wadanka Finland ayaa soo qabanqaabiyay bandhig hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ogaadeen lagu soo saaray bandhigan oo ka dhacay magaalada madaxda wadanka Finland Helsinki waxaa ka soo qayb galay qowmiyado ka soo jeeda qaaradda Afrika iyo wadamada Caribbean-ka mas'uuliyiinta jaaliyadda ogaadeen iyo ururka OYSU oo munaasabadan ka hadlay ayaa ka waramay taariikhda shacabka Soomaalida Ogaadeniya iyo xasuuqa ka socda Ogaadeniya ee shacabweynaha Soomaalida Ogaadeniya ee Finland ay ka soo qaxeen. Elias and I'm here to represent OYSU and the Ogaden community living here in Finland. And I don't have much to say about here, what we are going to do. I think you will really enjoy after this, but let me just introduce you to Ogaden community here in Finland. Just a minute, please. And the Finnish Ogaden come from Ogaden, which is located in between Somalia and Ethiopia. Ogaden is occupied by Ethiopian regime still, somehow it's under colonization. And Ogaden people living here in Finland decided to gather around and found an organization in 1994, not now. It's been a bit while, but we were in the shadow still, and now we are coming out. You will see us more. And nowadays our numbers are turning more than 250 and above. And here I represent who comes Finland all around the world. And we preserve, and actually we came all together just to preserve our culture from Ogaden and identity, as well as to integrate into Finnish culture. mas'uuliyiinta jaaliyadda ayaa sheegay in jaaliyadda ogaadeen iyo ururka OYSU uu ku hawlan yahay sidii la isugu xiri lahaa shacabka Soomaalida ogaadeen ee ku nool wadanka Finland iyo bulshada Finland si integration dadku u sameeyaan. And the reason and the purpose of Ogaden community, the main purpose of the association is to increase members' knowledge in Finland, the Finnish culture, members' employment and education, as well as to promote the Finnish immigration cooperation and the tolerance with us, the Ogaden community. And actually I think in the break time we will get to know each other more and we'll introduce Ogaden community more. Have a wonderful and enjoy your evening. And I would love to thank all the organizers who we organized, and it was a hard time we did all together. mas'uulkan ayaa sheegay bandhigan inay uga faa'iideysanayaan sidii dhaqanka Soomaalida ogaadeen loo bari lahaa bulshooyinka Finland. bandhigan waxaa suurto geliyay ururo ka soo jeeda wadanka Finland oo isugu jira ururo la aasaasay dagaalkii labaad ee adduunka ka hor iyo ururo kaleba. ururadan ayaa ka shaqeeya sidii qowmiyadaha kala gedisan ee ku nool wadanka Finland integration loo sameyn lahaa. ururadan ayaa u ballan qaaday jaaliyadda Ogaadeniya iyo ururka OYSU inay wada shaqeyntooda sii xoojiyaan kana soo qayb galaan xafladaha ay qaban qaabiso ururka OYSU Finland iyo jaaliyadda Ogaadeniya ee wadanka Finland. Say that we are happy to be able to contribute and participate to this event. As our organization is most probably the oldest one here present, it's almost 100 years old. I'm not telling the whole story to save you the time to have the wonderful performances here, but at the time when the organization was
established, there was a bloody civil war going on in Finland, and in the aftermath of it, the idea was to build bridges between various sections of the society. And although the time is not that severe, but I think it's very nice to contribute to this kind of events, which is trying to build bridges in a more peaceful time. So it's a pleasure to be here. waxyaalaha ay soo bandhigeen dhulka OYSU waxaa ka mid ahaa dharka hiddaha ay u leeyihiin Soomaalidu ee laga xidho dhulka Ogaadeniya. ururka OYSU waxa kale oo mashrax dhaqameedkan ay ku soo bandhigeen ciyaaraha laga ciyaaro dhulka Ogaadeniya